Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada aan jecelnahay ee ku xiran janalkeena Amir Soomaali waa idin salaamaya. Waxyaabaha aan isweydiinayno waxay tahay maxaa sababa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay wadanka ay ka cararaan iyagoo rajo dhiga. Runtii waxay noqon kartaa dhowr sabab ayay noqon kartaa. Dhalin walba Soomaaliyeed da'da yar ayay waxay ku bilaabaan waxbarashada, marka haba ugu horeyse waxbarashada diiniga ah, dabeetana waxbarashada maadiga ah. Qof walba da' yara waxaa u sawiran in uu ka heli doono nolol iyo mustaqbal fiican dhanka waxbarashada. Su-aasha meesha taagana waxay tahay, ma isku xiran tahay lacagta iyo waxbarashada? Qofka hadduu wax barto taajir miyuu noqonayaa? Ma jirtaa dad aan wax baran oo taajiriin ah? Su-aalahaasi oo dhan ayaan barnaamijkan uga jawaabi doonaa. Adduunyada marka aad fiiriso, dadka inta badan lacagta haysta ee taajiriinta ah uma badno dad wax bartay, uma badno. Dalkeena markii ay ka dhaceen dagaalada sokeeye ee dhibaatooyinka badan ay dhaceen, wadankii laga qaxay, intii yar ee wax taqaanay ayaa runtii mashruucyadii ugu badan helay, waxyaabo ugu badanna ka faa'iidaystay. Ciddii aan wax barinina markaasi waxay u shalaysay maxaad horey wax u soo baran weyday. Sababtu waxay tahay ciddii markaasi dhakhtar ahayd, waxay ka sameynaysay nolol fiican iyo lacaga badan intaba. Anagoo intaasi noo sawiran ayaan runtii waxbarashada bilownay, kamana fikiraynin in aan suuq u heli doono iyo in kale. Waxaan aaminsanayn haddii aan wax barano in nolosheena iyo nolosha waalidkeena aan kafaala qaadi doono. Jiilkani hadda waa jiilkii ugu horreeyay ee wadanka wax ku bartay markii laga soo tago burburka kadib. Jiilka ugu horreeyay ee wax bartay waaye. Fahan guud kama haystaan waxa dhici doono markii wax la barta kadib. Ma jirto qof saaxiibo ay yihiin amaba cid ayaga ka horreysay ay ka tusaale raacaan, ay dhahaan ninkani xaguu maray. Marka fahanka guud ee la haysto waxay tahay, qofku wuxuu rajeynayaa marka uu jaamacadda ka baxo inuu heli doono shaqo fiican ee ku filan noloshiisa iyo nolosha reerkiisa. Markii uu banaanka usoo baxo, raadinta shaqada aad bay u dhib badan tahay marka la joogo wadanka. Sababtu waxay tahay, xafiisyada inta ugu badan waxaa la isweydiiyaa waa qabiil iyo reeraysi. Marka isagoo wax bartay ayuu wuxuu u daba fariisanayaa qof aan wax baranin inuu shaqo geeyo. Waxaa laga yaabaa in lagu tuuro xafiis ay mid in adeer yihiin amaba mid ay qaraabo yihiin ayaa laga yaabaa in la geeyo. Markii la geeyo xafiiskaasi kama banaana wax boos ah. Meeshaasina wuxuu kala kulmayaa xushmad darro badan iyo ixtiraam darro intaba. Taasi waxay ku sababaysaa mushaarka yar la siiyo ma ciduu siiyaa mise noloshiisa ayuu ku dhistaa. Sababtu waxay tahay, wuxuu ku fikirayaa inuu guursado, mustaqbal iyo nolol samaysto. Reerna intaas oo sano waxbay soo barayeen, waxay ka sugayaan in noloshooda uu kafaalo qaado. Marka intaasi oo dhan ayuu cabiranayaa, wuxuuna ku fikirayaa inuu helo wax sababi kara inuu daboolo baahiyahaasi oo dhan. Wuxuu ka rajo dhigayaa waxbarashada, wuxuu ka rajo dhigayaa nolosha wadanka, wuxuu ku fikirayaa dhowr qof ee wadanka ka tegay, ee dibadaha tegay, ugu dambeyntiina lacag la yimaaday. Taasi waxay sababaysaa halhayskii ahaa ama qurbaha ama qubuuraha. Dowladda Soomaaliya saameyn intee la eg ayay ku leedahay shaqo la'aanta wadanka ka jirto? Wadanka wax shaqo la'aan kama jirto. Shaqo way ka jirtaa, laakiin systemka shaqooyinka loo raadiyo ayaa ahaa systemka qabiilka ah. Systemka qabiilkana wuxuu leeyahay dhibaatooyin aad iyo aad u badan. Sababtu waxay tahay, qofka haddii qaab qabiila uu shaqada ku helo, wuxuu la kulmi doonaa ixtiraam darro aad iyo aad u badan, amaba asaga wuxuu geysan doonaa ixtiraam darro badan.
intaba. Marka waxay ka mid tahay dhibaatooyinka waddanka ka jira. Dowladda Soomaaliyana xil iskama saarto jaangoynta mushaaraadka iyo weliba xuquuqaha ay leeyihiin dadka. Sababtu waxay tahay nin wax soo bartay ayaa laga yaabaa in xafiisyada uu dulsaar ku ahaado, ama isagoo free ah uu xafiiska joogo wax mushaar uusan qaadayn. taasna waxay ka mid tahay dhibaatooyinka, isagoo ku fikirayo in awoodda uu saaro experience-giisa. intaasoo sano wax soo baranaya 20 sano ka badan, haddana intaas oo sababood ee aan soo sheegnay ayaa ka mid ah waxyaabaha sababa in dhalinta Soomaaliyeed ee waddanka isaga cararaan oo ay maceen bidaan wadamo shisheeye. sababtu waxay tahay qofka bini'aadamku wuxuu u nool yahay in noloshiisa iyo nolosha waalidkiisa uu meel saaro. marka uu wadamada shisheeye tago wuxuu ka helayaa xuquuqo badan uusan ka helin waddankiisa hooyo. sababtu waxay tahay xagga markuu tago wuxuu wadanayaa waalidiintiisa, wuxuuna ka helayaa fursado shaqo, wuxuuna ka helayaa ixtiraam aad iyo aad u badan. sanada kadibna wuxuu la imaanayaa isagoo wato lacago fiican, taasi uusan ka heli lahayn waddanka. qofka haddii uu waddanka kusii nagaado maxaa dhici karo? haddii uu waddanka kusii nagaado waxa uu la daalaa dhacayaa sidii uu soo saari lahaa nolol maalmeedkiisa, isagoo marka horena ku fikirayay in nolol fiican uu ka samayn doono waxbarashadiisa, maadaama uu waqti badan, laga yaabe waqti ka badan 20 sano uu soo geliyay si noloshiisa uu usoo dhiso. noloshiisa nolol ahaani way dhisan tahay, laakiin environmentiga ku xeeran ayaanan ahayn environmentii waxbarashada ku shaqeeyo. wuxuu ku shaqeeyaa xoogsiga, wuxuu ku shaqeeyaa dhacsiga, wuxuu ku shaqeeyaa sidii nolosha loo kasban lahaa, laakiin isaga midaasi uma cuntamayso. waxaa jira marka halhays dhahaya ama qurbaha ama quburaha. marka sida looga hortegi karaa waxyaabahaas? waxaa looga hortegi karaa in dowladda Soomaaliya ay ilaaliso xuquuqaha shaqaalaha, ayna sameyso xafiisyo cabasho. sababtu waxay tahay waxaa jiro shaqaale badan ee ku dhibaataysan meelaha ay ka shaqeeyaan, haba ugu badnaadee shaqaalaha caafimaadka. isbitaalada xadgudubyo kala duwan ayay kala kulmaan, go-aanna ma qaadan karaan. sababtu waxay tahay wuxuu u baqayaa in saameyn ay ku yeelato noloshiisa iyo mustaqbalkiisa dambe. weli wuxuu leeyahay rajo. marka inta aysan ka rajo dhigin ardayda dambe ee wax soo baran lahaa, dowladda Soomaaliya waxaa waajib ku ah inay diiradda saarto si u ilaaliso xuquuqda shaqaalaha, xuquuqda mushaarka qofka waxbartay. qof waxbartay uma qalma in $150 ama $250 uu qaato, uma qalmo. sababtu waxay tahay ciidamada booliska kuwooda aanan waxbaranin ayaa ku shaqeeya $200. qof waxbartay ee neris ah, neris waa dadka ugu muhiimsan bulshadeena kaliya, dhaqaatiir kaliya uma baahano, neris badan way u baahan tahay. marka waxaa loo baahan yahay dowladda Soomaaliya inay ka fikirto. That's all.